mudana gudoomiye maxkamadda sharafta leh sida ku cad warqadda ku taariikhaysan 3 bishii 7 2023 sumadeedu tahay xig galambar 4569 2023 kana soo baxday xafiiska xiriirliyaha guud ee qaranka. xafiisku waxa uu racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir ee lambarkiisu ahaa 469 2023 soona baxay 6 bishii 6 2023. sida ku cad isla warqadda qaybteeda dambe xafiisku waxa uu ka qaatay qayb ka mid ah xukunkaas ma wada durin, wuxuu ka qaatay 2 qodob oo ku cad warqadda kuna faahfaahsan. labada qodob waxa weeye qodobka koowaad ee ah go'aanka maxkamadda ay ka gaadhay qiimeynta kalluunka ay gurteen eedeysanayaashu xilliyadii kalluunka la xaraashay ka horreeyey kana gurteen xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan biyaha loo yaqaano biyaha aagga dhaqaalaha iyo aagga dhowran ee xeebaha Soomaaliya. kalluunkaas magdhowdiisa waxaan u cuskanaynaa qodobka 131 ee xeerka kalluumaysiga iyo xeerka sharciga maareynta iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliyeed ee sharci lambar 8 2023. qodobka labaad waxa uu yahay waana sabayn doonaa. qodobka labaadna waxa uu yahay doodii xafiiska xiriirliyaha guud ee qaranka uu soo bandhigay maxkamadda gobolka Banaadir waxa qayb ka ahayd inuu jiray khasaare soo gaaray xilligii qabashada eedeysanayaasha iyo doonyahooda la qabanayay lagana soo qabanayay meel ku beegan degmada Hobyo, magaalada la yiraahdo Labaad, meel u jirta 20 mayl nautical mile ee kaga beegan dhanka badda. xilligaas waxa dhacay dad Soomaaliyeed ee la shaqeynayay sida aan xogta ku helay ayaa weerar ku soo qaaday ciidanka badda Soomaaliyeed, waxaana halkaa ku qalibantay dooni caawinaysay ciidanka Soomaaliyeed ciidanka badda Soomaaliyeed. doonidaas oo qiimaheeda aan ku qiyaasnay $30,000 oo magdhow ah, ayadoo la cuskanayo marka qodobka 131 waxa uu leeyahay magdhowyada qabashada, haynta iyo khasaaraha ka dhasha xilliga la qabanayo qof kasta oo ku soo xadgudba biyaha Soomaaliyeed wuxuu noqonayaa dusha eedeysanayaasha ama cidda geysatay falkaas xilliga la soo qabanayay. labada qodob sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay naga aqbasho racfaanka aan ka qaadanay xukunka ujeedka sare ku xusan, ayadoo la tixgelinayo asbaabta aan sheegnay, isla markaana la cuskanayo qodobada aanu soo xusnay ee qodobka 131 iyo 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qaybta khusaysa cabashada uu qabo xafiiska xiriirliyaha guud ee qaranka ee ah magdhowyadaas oo aan qaybtoodna qiimihii saxda ah aan lagu baysgarayn, qaybtoodna aan maxkamaddu aysan ku xusin xukunka. sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanay inay aqbasho racfaanka aan soo jeedinay. waxaanu soo bandhigi doonaa racfaanka hadday naga aqbasho caddaymaha iyo muuqaalada iyo markhaantiyaasha aan u hayno ee maxkamadda aan horkeeni doono sidii aan u horkeenay maxkamaddii gobolka Banaadir. maxkamaddu waa mahadsantahay.